ميغا لو يقان أحد الأصدقاء وحنا كسوكلي جري أغنية لا يراهضا دا حسستين حلمنا نهار ونهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا أمل وتهدي الأحواء في آخر النفاق تدعونا كي ننسى أمنا عشنا نستسلم لكن لا ما دنيا أحيا نرزق ما دام أمر طريق فسنحيا ميجا عهد الأصدقاء لقيا بين يران ترى دعوتي وحنا كسر قريب شري كنال كات الله يقان إسبيستون طبعا أصحابي أوكي قصة كذا بينسا أني كان إن الصوص على أني ميجا من أوكي إن قصة وتهي قصة كرتون كعادي إن الله صام بندقي إن بقولك دونتها ويسان يعني حقيقي قدرت إنسان كجري صواب تا كرتون كم حلو تلقيني عروض دعوان عروض نوم أتكيسن كرام حيابها مروك تلي هذا بس أصحابي أني ميجا ما توا أني مئات مروك بدن إني أدين مركز سوحنا هو إذا تكقيرون دوت أنك بنقول دوت تم مقال كان دميسدي مقال كان لقى يا بينو تهرادو أو وايو حربين تفاصيل بدن يشرحه أني ميجي مركز عروض الداوسين يو يعني لو مشيك لحظات كدبتي وحين وحيابها معي يرنت لو مشيك ساش خاصة قال مركز سومران ظروف وجود ولا قرية عادي سعروته يعني أملي ظروف كم وقطية وحيابك أنا وجهه قدبت لو حاجة ما سويت جيس كوسو ساري دونا مركن ومركن يعني عروض لا تصي شخص بكل ليسو markan kale waa marka dhabta ee reality ah qisadan anime-gan waa qisar run oo dhaxday waxana dhacday qarnigii 17aad يعني كن سيدات بقولة ميلاس يدحدي وإحنا كنا على ويل لا يقان روميو يساحيل كيس لا يقان ألفريدو وأنا قصة آد ومربنا أصحابي يمثل رعي مقاطع لايك سارة كنا لكم تصبروا سبسكرايب سارة أني سي أنو قش راح أصحابي ما أنت حماسة بقى هي سبا وأنا كده ريم ساعد كي يسوى حماسة ولا هي كمان عاجز يسمى أنت هذا الكلام مقولني سعادة إنه هالليا يمكن نوبلا حلقة ده أني ميجا لا يقانو عهد الأصدق bilowgaani miiga waxaan arkaynaa wiilkaas oo wiil aad u firfircoon wuxuu iskaga nool yahay wadanka loo yaqaan Switzerland bartamaha Yurub dhulkii quruxdii wanaaga hadaba saxaabi wiilkaa ruux iskaga nool yahay tuuleer wuxuuna la nool yahay hooyadii aabihi iyo walaashiisa yar ka yar wiilkaas noloshiisa iska dagantay ee maalmaha kamid ah waxa tuulada imanay ninkaasna waa ninka aan ka ganacsada caruurta wuxuu soo fariistay maqaayad wuxuuna arkaa wiilka yar oo loo yaqaan Romeo oo aad u firfircoon Fariida maasuu yiraahdaa wiilka waa wiilkan doondoonayay haddana waxaan kan iibsado waxaan ka heli doonaa lacag aad u badan maasaabi uu la hadlo wuxuu ku yiraahdaa wiilka Romeo adiga miyaa dhalay maasuu wiilku la hadlo odaygu wuxuu ku yiraahdaa aniga ayaa dhalay maxaad ka doonaysay maasuu ku yiraahdaa wiilkaaga raba inay ka iibsid maasaabi uu xanaaqo wuxuu ku yiraahdaa sababaha hadalka u dhihi kartaa ma waad noo haystaa qof faqiirina dhulkeen waa doog roobku noo daay beeraha qodani waan reegsanahay gaajana ma hayso xitaa heer wax gaan cunada aan siin xoolaha ee adigu ma waxaad noo malaynaysaa adigu hadda Talyaaniga ka yimid in aan gaajiye baahin hayso ma soo ku raahmay ku raahda waxaan hubaa inaad ii baahan doontid ee hadda ay fursad haysataa ee ilmahagaysi ma soo ku raahdaa taas macquul ma ahan waxna macquul tahay kaliya markaan dhinto wiilkeer hooyadii ayana ay dhimato maasan ninkuu la yaaba hadalkiisa wii odaygana iska soo dhaqaaqa waxaan u sheegay xaaskiisina wax bilowna ka xanaaqo tiraahdo taas macquul ma noqon doonto maasan ninkii nin shaydaan ahaa waxa ku soo dhacday fikrad wuxuuna yiraahdaa aniga miyuu saas igu leeyahay hadda hadduu ka shalayn doono kadib subaxii markii la gaaro ayaa odaygu aabaha ahaa wiilka Romeo dhalay ayaa wuxuu soo aaday beertiisii beertiisu wax arkaan beertiisa ay la googooyay oo mirihi dhan laga jaray oo yani meeshii dhanba laga dhigay khalaaso markuu aabuhu arinkaas arkan aad ayuu murugooda oo kan naxaa wuxuuna yiraahdaa yaasan u galay maasuu wuxuu ogaaday inay aysan u galeen xayawaanadaasna ay keentiisa lagu soo fasaxay cid ku soo fasaxay uusan garanin kadibna waxaan ogaanaynaa halkaas waxaan ka ogaanaynaa in xayawaanada cidda soo gelisay beerta aysan cid kale ahayn ee ninkii ahay wajiga jeexnaa ee ka yimid Talyaaniga ninkaasna waa nin muqaadac oo dib badan marsa maalmaha kamid ah odaygu ka murugooda waxa ku dhacay intii yareedee beertiis ka soo godayna way cunaan kadib waxa la gaaray xilligii jiilaalkiina roobkii ma yimaado oo yani waqtigan jiilaalku ma yimaado xaafadiin waxa soo wajahda abaar aad u daran tuuladii yareedba tuuladii waxay cunta ayaa la waayaa dadkiina cuntada ayaa ku yaraata ninkii Talyaaniga ahna istiin meesha ay joogaa yani wuxuu rabaa inuu raadsado ilmo yar kale soo afduubto tijaara ama ganacsi ka sameesto waalidiinta ka codsan inuu ka iibiyo laakiin ilmo yar kale uu waayaa wuxuuna ka helaa kaliya wiilka loo yaqaan Romeo inuu rabo inuu maalin fursad ku helo kadib markii jiilaalkii la gaaro dadkii meesha abaar ku dhacdo ee wax la cunay la waayo ayaa odaygu wuxuu yiraahdaa hadda maxaan sameeyaa haddan xagee cuno uga keena wiilku wuxuu ku yiraahdaa aniga waxaan tagi doonaa wabiga xagaasaan noo soo raadin doonaa kalluun iyo waxaan soo daban kadib odaygu wuxuu ku yiraahdaa waayay wiilkaygii ee hadda maxaan sameyn maasuu wiilkii wuxuu soo aadaa dhankii wabiga wuxuuna isku dayaa inuu kalluun iyo wax soo dabto laakiin maalintaas oo dhan wax kalluun ah ma soo dabto
tuuladii yaree miskiinta ay dadka masaakiin iskaga noolaayeen abaar aad u xun baa ku dhacda dadkiina markay wax ay cunan waayaan ayaa bii maalmaha kamida ayaa wuxuu yiraahdaa maxaan sameeyaa hadda isagoo fikraya ayaa wuxuu isku soo raacay ninkii Talyaaniga waxay salaamad ka yiibsaa ninkaas bal ilmaha geer oo yani nolosha ku dabartay inta ka dhigay xayaaga Europe iman doono dhulka barwaaqo noqon doono hadda wuxuu yiraahdaa fikradaas macquul maahan mar dambe ha ku fikirin waxaas oo kale markaas maalmaha kamida wiilkeera hooyadii wax soo dhaqaada kayntii iyadoo kayntii dhex socoto ayaa waxa qaniina mas kadib dhulka ay ku dhacdaa waa la soo gurmada waxana la geeyaa xaafadii markii la geeyo waxa la yiraahdaa gabadha hata maxaan ku sameeynaa kadibna sunta ayaa la isku dayay in laga daweeyo suntiina dawadeedu waxay noqotay dawo aad u qaaliya waxana la yiraahdaa ninka dhakhtarka ee noogu dhow waa ninka jooga Talyaaniga dhakhtarkaasna lacag aad u badan ayuu baahan yahay soo gabadha u daweeyo laakiin odaygu wuxuu isku dayay in wax kale uu sameeyo yani dawo kale uu raadiyo oo wiilkiisa ku yiraahdo wiilkayga maxaan sameeynaa hadda saan dawada hooyada ugu soo iibino oo u bogsato hooyada maxaan inkastoo suntii laga soo saaray yani suntii mar hore dhiman lahayd qofkii inkastoo sunta mar hore laga soo saaray weli waxay u baahan tahay inay hesho dawaas maadaama lugteeda uu ka qaniinay muxuu ah masku kadibna uu lugteeda noqoto parasite yani ay noqoto curiyaan oo mar dambe shaqayn doonay ilaa laga helay dawadaas wiilkiisa ilaa Allah wuxuu ku yiraahdaa wiilkayga maxaan sameeynaa hadda maasoo odaygu wiilku wuxuu yiraahdaa aab waxaan sameeynaa ma garan maxaan sameeyaa maasoo odaygu wuxuu yiraahdaa kor wiilkayga hadaad ku iibiyo maasoo wiilku la yaab wuxuu ku yiraahdaa maxaa aabasee ugu dhiiratay hadalkaan igu taadiyana iga iibinaysaa maasoo odaygu wuxuu ku dhaw wiilkayga iska daa kula kaftamayay kadib odayga isagoo xaaladii ku xuntahay ayaa wuxuu yimaadaa ninkii Talyaanigii wuxuu ku yiraahdaa saaxiib hadda waxaan go'aansaday inaan aqbal hadalkaagii maasoo ninkii wuxuu ku yiraahdaa 7 bilood hore laga rabay inaan iska aqbasho hadalkayga maadaama aad u baahanto lacag aad ka maalmin maasoo ku yiraahdaa maxaad rabtaa inaad yani siisi mise lacag ay siinaysaa maasoo ku yiraahdaa 20 liiro ayaan rabaa inaan iga iibso wiilkaaga odayg markuu 20 liiro maqlay madax ayaa qarxay wuxuu ku yiraahdaa wiilkayga ma neef loo ama neef la xal iibinay miyaa maxaa ka khaldan qof bilaadan sharaf loo luqada yaqaano aqli la miisan ahayn ma neefba maasoo odaygu wuxuu ku yiraahdaa hadda 20 liiro iga iibsanaysid iga iibso waa ilaa meesha aan ka kacayaan umana baahin ilmaha maasoo odaygu wuxuu bilaabay fikro murugoodo kadib wuxuu ku yiraahdaa waayahay suwa soo dashan wiilkayga la soo tashanayay wiilkiisa uu tagay wuxuu ku yiraahdaa aabbu ku yiraahdaa wiilkaygii saas ayaa dhacday hooyada hota curiyaan noqotay anagu waxaan cunno ma haysano abaar baan ugu dhacday waadii arkaya ee ka war haddaan ku iibiyo oo 20 liiro ku siiyo oo ninkaasna aad u shaqaysay inta noloshaada ka dhiman markaas wiilkiintu yar aamuso yiraahdaa aaba dhimale mar haddii hooyaday caafimaadayso oo yani ku soo caafimaadayso lugtaas darteed dhimale aniguna waa aqbalay 100% maasoo wiil odaygu isagoo murugaysan ayaa wiilkiisa u iibiyay markii wiilkiisa la iibiyo odaygu wuxuu ku yiraahdaa hadaba wiilkayga hadda wad iibsi soo maaha wiilkaaga wuxuu tagay meel magaalo u dhaxaysa Talyaaniga iyo yani Switzerland magaaladaasna waa wadan yar oo hadda waa la aqoonsan yahay wadanka yar u dhaxeeya ayuu sii maraya wadankaas markuu sii maro magaaladaas markuu ka sii tago wuxuu sii aaday ilaa Milano oo yani Talyaaniga si caadi u aaday Talyaaniga isku arki doonay markaas wiilku wuxuu ku yiraahdaa waayahay intuusan wiilkiisa waxdii uu soo bixin ayaa wax uu la hadlaa gabadh saaxiib ahayn gabadha saaxiibka ahayn wax ku tiraahdaa gabadha waxa loo yaqaanaa Anita gabadha Anita wax ku tiraahdaa hada saaxiibkayga qaaliga ahaayo miyad iga tagaysaa masuulku wuxuu ku yiraahdaa ha ka murugan taas ku soo laaban doonaa yooman maalin ma ku soo laaban doonaa hadda ka waran ninkaas ay leeyihiin iibinaya ninkaasna wuxuu geeyay magaalada Milano oo xagaas noloshiisa inta ugu dhamo uga shaqeynayay maasa gabadhu waxay tiraahdaa ninkaas waxaan maqlay in caruur badan uu ka kaxeeyay Switzerland caruur kastoo la geeyay yani wadankaas la yiraahdo Talyaanigana iyagoo nabad qabo oo soo laabtaanba maasa wiilku wuxuu ku yiraahdaa taas waa caadi male aniga yani waska taxadari doona aqligayga adeegsan doona wixii khatar ay ku soo wajahan waska ilaalin doonay kadib wiilku wuxuu la tashtaa muciidina wuxuu ku tiraahdaa wiilkayga ku tiraahdaa ha ku soo laaban Switzerland ilaa adigoo يعني نقضي قف قنية oo lacag haysta oo noloshiisa ay u fadhido maasa wiilku wuxuu ku dhahaa macani taas ay ugu ogtahay subax markii la gaaro wiilku wuxuu soo macsalaameeyaa hooyadii aabiyo qoyskiisa wuxuuna soo dhaqaaqay dhankii loo yaqaanay Milano wuxuuna soo jaraa buuro iyo dhul dooga qurqurxoon iyo wabiyaal iyo meelo baraf yeelan dhul baraf dhul saxaa dhul qurxoon meel kasto soo maray wiilkaas soo socday ayaa maalmaha kamid wuxuu soo aadaa wabiyar wuxuu isku dayay in wabiga xoogaa kalluun yar wax ka soo dabsays dhaho laakiin soo kalluunka soo qabsays leh ayaa wuxuu ku dhacay madax wabigii ama yani biyihii kadib markuu biyi ku dhacay wuxuu maqlaa qof ku qoslaya maasuu qofkii ula hadlaa wuxuu ku dhahdaa waryaa maxaad igu qosaysaa hadan yaa caawin iska tagtay
maase ninka wuxuu ku idhahdaa saad ugu dhacdaan ku qosay saaxiib maasuu ku idhahdaa saaxiib wayba u leedahay saaxiib maasuu ku idhahdaa ka waran haddaan noqdo labada saaxiibo maase wiilku wuxuu bilaabay inuu gabii ka soo baxo waxayna bilaabeen xoogaar sheekaystaan markaase wiilkii timaha jaalaha lahaa wuxuu idhahdaa magacaygu waa Alfredo adigana magaca maase wiilku wuxuu ku idhahdaa waxaa la idhahdaa Romeo maase wiilkii Alfredo markaase wiilkii Romeo wuxuu ku idhahdaa waxaa ka timid wuxuu ku idhahdaa waxaan ka yimid magaalada loo yaqaan yacni Switzerland agteeda ka yimid magaalo ku taalo Germany agteeda ah ayaan ka yimid markaas wiilku wuxuu ku idhahdaa aniguna Switzerland ayaan ka yimid hadda adigu xagee socotay maase wuxuu yidhi anoo ninkii marka wax ka hadlay wiilka Alfredo ayaa la wuxuu leeyahay anoo maalmaha kamid iska jooga tuuladii yar ayaa indi ninkaasna anigu wuxuu iga gatay idadiina waxay ku tiri waa ina aada magaalada Milano maase wiilku Romeo la yaab wuxuu ku idhahdaa hey saaxiib meel ayaan ku wada soconay qisada kugu dhacday mid lamid oo kale aniga igu dhacday ka war haddaan israacno daan saaxiibo noqono kadib labadii wiil xaggaas waxay noqdaan saaxiibo wiilkii Alfredo ayaa xublaan gacanta wiilka kor u qaaday yiraahdo wiilkii labadii waa isla waari doonaa inta nolol jirto waa isla noolaan doonaa waxaan ahaan doonaa saaxiibo aad isku jecel oo aad isku gudhow maase wiilku wuxuu ku dhahaa taas waa wax aad loogu farxo saaxiib aniguna aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa saad ii sharafisay iyo saay karaaminaysid labadii wiil way heshadaan waxayna ugu dambeyn soo aaday magaalada loo yaqaanay yacni Talyaaniga ee u dhaxaysay Switzerland magaaladuna waxay ahayd magaalo aad u weyn oo aad u qurxoon kadibna markay dhalaalkii la yaaban ayaa waxay idhahdeen maxaan sameynaa hadda kadibna waxa la geeyay xafiiska ayaa lagu dhahdaa xafiiskaas ay sii joogi doontiin ilaa inta niga imanaya labada qof ee yacni niga iibsanay iniga xafiiskii markii la keeno xafiiskiisa waxayba ku arkaan caruur badan oo ku dhawaad gaaraya 15 caruur oo ku dhex jira qol mugdi ah xafiiska lagu lahaa xafiiskaas sii joogaysiin xafiisku wuxuu noqday qol mugdi ah kadibna markaas habeenkii markii la gaaro ayaa ninkii aan ka jeexnaaya wixii kadibna markaas habeenkii markii la gaaro ayaa ninkii aan ka jeexnaaya wax yimaada magaaladii wuxuuna la kulmaa caruurtii wuxuuna ku idhaahdaa hadda wani tahriibinaya waxaana rabaa inaan si qarsoodi inuu geliyo Talyaaniga ilaa Milano aan rabaa inaan geliyo ee isdiyaariya kadibna doonaya ayaa wax lasoo saaray caruur aad u badan waxaana bilaabnay doontii lagu soo sii daayo dhankii badda oo caruurtii la soo saaro kadibna badda ayaa kacda habeennimadii caruur fara badan ayaa badda ku taato xagga ku geeriyooda kadibna labadii wiil waxay ku dhacaan baddii wiilkii Romeo wuxuu isku day saaxiibka Alfredo inuu badbaadiyo kadib markay badbaadaan labadoodii ayaa waxay arkaan ninkii canka jeexnaa yacni ee xaasidka ahaa iyaga ka ganacsanayay oo badda ay qiliq rabto kadibna waxay bilaabaan soo qabtaan oo badbaadiyaan ninkiina wuxuu idhahdaa hadda waa maalintii ugu dambeysay dhiman lahaa kadib markuu ninkii isagu wuxuu gala koomada markuu galo koomada kasoo naaxo ayaa wuxuu dibad markay keenaan ayuu wuxuu idhahdaa weli miyaa noolahay aad iyo aad buu mahadsantihi maadaama ay badbaadiseen haddana waxaan rabaa inaan safarkan sii wadano ayna marsha kadib labadii wiil baa waxaan bilaabnay soo kaxeeyo labadii wiil baa ka hareeba caruurtii kaliya oo yacni badda ay ku wada dhinteen caruurtii yar kale labadii wiil oo kaliya ka soo hareeba nasiib wanaagooga iyo ninkaas canka jeexalaysana uu dhiman lahaa laakiin labadu caruur ayaa soo badbaadiyey sidii loo soo waday caruurta ugu dambeyn waxaa la geeyey magaaladii caasimadda ee loo yaqaanay Milano magaalada Milano waa magaalo aad uga weyn magaaladii hore waana magaalo aad uga qurxoon magaaladii hore oo ay joogeen waana magaalo dhan kasta ka duwan waxay leedahay dhismayaal aad u dhaadheer caruurtii markay arkaan dhismayaashii waxyaabahan aad ay uga indhatiraan oo yani aad ayayna uga helaan kadibna labadii wiil si loo waday ayaa waxaa la geeyaa xafiiskaas markii la geeyo caruurtaas ayaa waxa yimaada labada nin waxay idhahdaan labadan caruur anaga iibsanayna ee meeqe yani ama imisaan naga siinaysiin maase waxay idhahdaa wiilka Romeo isagu waa 80 liiro kan kalena waa 80 liiro maase ninkii uu qayla wuxuu idhahdaa 80 liiro kiiseeba macquul ku tahay inay iibso labadan caruur oo yani 80 liiro waa 80 kun oo dollar yani wax saas camal oo kala weeyaan
masuu yiraahdaa 80 liir haddana iska bixinay yani waxba kaama qaadayna anagoo ilmana kuma siinin iskaga tagay ku meesha mase ninkan waa nin loo ninkan naanistiisa waxa la yiraahdaa ra'sul laymuun baa la ama ninka yani madaxa ku leeliinta oo markuu ku jira inuu meeyga kartoonka caruurta daawanayaan ra'sul laymuun baa loo yaqaanaa ama yani ninka madaxa liinta kaga eegle ninkaasna nin aad u dabeecad xun weeyaan nin aad u qallafsan weeyaan waa nin ninkan burburin doona labadan wiil caruur noloshooda markaasaa meesha waxa soo gala ninkaasna oo nin aad u qaniya waana nin yani ka shaqeeya businessmanka ayaa meelaha nadaafadda waxyaabahaas businessman weeyaan meelaha nadaafadan ka shaqeeya adoo nin iska qaniya lacag haysta ninkiina wuxuu yidhahdaa waxaan rabaa inaan ilma yarisiisiin yani aan rabaa inaan niga iibsado maase waxay ku dhahan 80 liira bixi 80 liiro kolkiiba iska soo saaray isagoo wuxuuna yidhahdaa waa ka 80 liiro iga dhan tahay ay si hadda wiilka loo yaqaano Romeo ayaa waxaa yidhahdaa ninka adaan kugu darnay yani aan qaadanaysid oo Romeo lagu yidhahdaa ninkan ayaan kugu darnay ninka ayaan la noolaan inta noloshaada ka dhimanaysa ogow ilaa soo haduu doono iska taayiibinayo masawirku wuxuu yiraahdaa iska aqbalay iska aamusaan kadib ninkii kale Suleymiinkuna wuxuu yiraahdaa hadaba mar hadii nin qeyrkay horta ku iibsanay ilma yar oo yani 80 liiro aan ka baqaysan aan maxaan ka baqan 80 liiro imikadan baa iska bixin karayaa 80 liiro iska dhiiba isna wuxuu qaatay wiilkii Alfredo iyo wiilkii Romeo way kala fogaadaan mid kastana wuxuu aaday yani magaalada cirfay ka dagaa midka kale wuxuu aadaa bari midka kale galbeed magaalada ka aaday yani magaaladu waa kala fogeeyay labadii wiil wiilkii yaraa Romeo halkaas waxa uga bilaabatay nolol aad u xun oo murug badan wiilkii Romeo markuu soo raacay ninkii ayaa waxay soo galaan gurigiisa markuu soo galaan wuxuu maqlaa hadalkaas oo wariya maxaa meesha ku keenay masaanikii waxa la hadla wuxuu yiraahdaa istijaa xaaskaygii masay ku tiraahdaa yaa kula socda waayahay masay ku yiraahdaa waxa la socda wiilkaas waayo ku tiraahdaa masay ku yiraahdaa wiilkaas waa wiil yaqaan Romeo waana wiil yar cabiidan oo ama yani adoona waa wiilkan rabina soo iibsano masay tiraahdaa hay hadduu wiilkaas fiican shaqeyn waayo nolosha ayaan ku gubaya nolosha ayaan ku cadaabaya soo ogowya wiilkii markuu maqlay islaanta say hadlayso wuxuu bilaabay inuu jareeyo isagoo dhan buu cabsoodo waayo hadalkeedu waa hadal aad u naxariisto xun oo yani naxariistu ay ka fogtahay markaas wiilkii Romeo wuxuu arkaa nin yar ninkaasna islaanta ayaa dhashay waxaana loo yaqaan Anselmo ayaa saxaabada laga inuu magaciisa ilaaw mustaqbalka ay xasuusiye ayaa hadda kuma taygu soo qor Anselmo magaciisa aad u adag ninkaana nin yar aad u cawaandiya wuxuu bilaabay wiilkiisa inuu soo fiiriyo wuxuuna leeyahay dabeecadda hooyadii oo kale kadib habeenkii markii la gaaro la wada casheynayo ayaa wiilkii yar iska soo fariistaa meesha agtooda ahayd lamana sheekaysto iyaguna waxay bilaabeen iska casheeyaan ninka yar Anselmo wuxuu yiraahdaa hooy ninka yar toqonkay meesha noo keenteen waayo waxay ku yiraahdaan wiilka yar doqonka ah waxa doonto u dirso kuma diidi karo haduu ku diiday anaga noo soo sheeg balse wiilkiisa iska aamusan ayaa waxay saanta la haasho wuxuu ku tiraahdaa hoo qabso furum kan yar yani roodhi yar buu jabisay wuxuu ku tiraahdaa roodhiga yar qabso kuna seexaawo cunna waxna kuma hayna anagu meeshan ma meesha caruurta lagu dhaqaaleynay laguna korinay ogoona kaliya waxa tahay adoon oo yani waxaan ku soo iibsanay inaan noqoto adoon odaygana wuxuu ka cabsanayaa salaantiisa oo hadalku ma soo celin karo waayo wuxuu ogyahay in hal dhulka intay kor ka qaado dhulka ku jiidayso odaygana oday yar aad u fulaya oo yani salaantiisa ka cabsanaya kadib wiilkii wuxuu bilaabay inuu iska murugoodo isagoo yani shib intuu afkiisa yani shib iska dhaho ayaa wuxuu iska aaday qolkiisuna qol yar aad u ciriiri ah oo inta la seexo kaliya madaxa la saaro kaliya leh ninka yar Anselmo loo yaqaanina wuxuu ahaa nin aad u cawaandiyo aan saan soo sheego mar walba dulmiga jecel wuxuuna bilaabay wiilkii yar oo ku qeyliyo subax markii la gaaro yani ku qeyliyo caayo masawirku wuxuu ku dhahay maxaad ugu caayis maxana kugu sameeyay kadib meesha waxa soo islaantiistaantii waxna ku tiraahdaa seebadu ugu dhiiratay wiilkiisa caaysin adigoo wiliba adoon yar oo daciif oo nacasa masawirku ku dhahay wiilkaaga isaga caay masawirku ku tiraahdaa may shaqada ma waxaasi ee shaqada dhaqso qabso mar dambana wiilkayga ha caayin mar dambana ku soo afcelinayaan inaan ku arkin kadib wiilku iska aamusaa kadibna waxaa bilaabay inay maqlaan hadalkaas markay maqlaan waxay soo aadaan dhanka qorfadii ama qolka ka yaray hadalkaasna waa hadal gabadh loo yaqaan Angelita waana gabadh yar oo ku dhacay cudurkaas oo aan daawo lahayn maasa odaygii baa la wiilkii yar wuxuu ku yiraahdaa tayris ka baro waa gabadh loo yaqaan Angelita waana gabadh yar bukaana laakiin qalbigeedu waa qalbi wanaagsan leh bilooyin kadibna adduunyada ka tagi doontaa iyadoo dhiman doontaa sala sheegay maasa wiilkii la Romeo la hadla wuxuu ku yiraahdaa barasho wanaagsan walaashay hadda laga bilaabo labadan waxaan walaalo Soomaha maasa gabadh ku tiraahdaa walaalkay oo kale mid tahay waxaan rabaa inaan ku noolaan doono nolol fiican inkastoo hooyadeed tahay qof iska dabeecad xun oo yani wiilkayga walaalahan ahayn isagoo yahay qof dabeecad xun laakiin aniga aabay waxaan laba qof oo hadal wanaagsan yani oo qalbi wanaagsan leh oo ku soo dhaweynayna mas'uulku wuxuu ka taas dhib male hooyadan hooyadeed kale aniga yani waxba kama soo qaaday dhibkeeda iyo balaayada igu sameynayso maasa gabadhu waxay ku tiraahdaa aniga waxa loo yaqaan Angelita waxaan igu hayaa cudurkaas maalmo dhow ka dhawaan yani ka tagi doonaa dunidan oo aan ku dhiman doonaa saas ayaan rabaa inaan kula sii dhaqmo si wanaagsan intaan noloshan aan ka faaruqin
kadibna odaygii baa la hadlay wiilkii yaraa wuxuuna ku yidhaahdaa hadda xaggaas ku jooji hadalka waxaan rabnaa inaan shaqadeenna bilaabno ayna mari kadib magaalo markay soo aadaan ayaa wuxuu yidhahdaa wiilkiygiiyo maanta waa maalintii ugu horeysay shaqada waxaan laga baa inaad shaqada si fiican u qabato kadibna wuxuu bilaabay inuu hadal idhaahdo hadalkaas oo ah isbasakalita yani waa kelimad talyaaniga oo ah yani yaa raba shaqo kadibna qof ayaa wuxuu bilaabay inuu daaqada soo istaago idhaahdo kaale anigaa raba inaan laga shaqeeyo guriga laga nadiifiyo kadib guriga markay saa soo galaan ayaa ninkii wuxuu idhaahdaa gurigeyga meesha yani ka baxo duqaanka ama qiiqu ka baxo ayaa yani madoobaatay waxaana rabaa inaan iga soo nadiifiyo kadib wiilkii wuxuu ku odayga wuxuu ku dhaha wiilkii yaraa Romeo dhaqso meesha gal oo soo nadiifi kadib wiilkii waxa loo dhiibaa maro wiilkiina wuxuu bilaabay inuu meesha tiirka ahayd yani duqaan ka baxay uu soo nadiifiyo isagoo nadiifaya wuxuu bilaabay qiiqi yani sanka uu ka galo wiilkii wuxuuna bilaabay inuu dawaqo kadib wuxuu kusoo dhacaa dhulka kadib markuu dhulka soo dhacaa waxaan bilaabay in lagu qosqoslo maase wiilkii wuxuu ku dhaha maxaad iga qosaysaa maase gabdho waxay ku tiraahdaa hoo miyaadan isku fiiri maase miyaad saa markuu wiilkii isku fiiriyo wuxuu arkay in wejigiisii madoobaaday dhulka jidhkiisa oo dhan uu madoobaaday laxdadaas caruurta waxa looga dhigay yani wax wanaagsan baa looga dhigay waxaan jidhkiisa inuu madoobaaday lama tusay laakiin waxaa la tusay sawirka dhabta waa kan asxaabay waa nimiga qisadiisa dhabta la jilay waa kan saas wiilku ekaaday wiilkiina nolol wuxuu ku noolaa ya'si ciil miiran ah yani wuxuu bilaabay inuu xiiso qoyskiisa iyo noloshii hore ku noolaa aad ugu wanaagsanay kadib wiilku wuxuu soo aadaa qolkiisii wuxuuna bilaabay inuu iska fikiro iska murugoodo yani ka fikiro laxadaadkii noloshiisa wanaagsan iyo wixii soo maray kadibna waxa uu bilaabay inuu lala hadlo hadalkaasi waa gabadhii loo yaqaan Angelita wayna la hadashay waxayna ku tiraahdaa waa aad iyo aad ayaan kaaga raaligelin waxa kuugu dhacay hooyaday aabahayna waa saas dabeecadoodu noloshana saaxiib mar ayaad ka bixi doontaa mar ayaad soo gashay soo maaha haddana waad ka bixi doontaa mustaqbal wanaagsan oo kuu soo socdaa waxayna bilaabay wiilkiina inay niyadda u dhisto wiilkiina aad ayuu gabadha ula dhacaa aad ayuu uga helaa qalbi wanaagsanaanteeda iyo si ay u dhiirigelinayso mar walba ay nolosha yani ugu fududinayso ee culeyska saarna uga kala dejinayso